ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa booqasho dhiirigelin ah ugu tagay ciidamo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo loo diyaariyay inay sugaan ammaanka caasimadda Muqdisho. Nasra Bashiir Cali ayaa faafahinta warkaasi inuu haysaa. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ay weeliyaan wasiirka amniga gudaha iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa maanta booqasho dhiirigelin ugu tagay qaar ka mid ah ciidanka NISA kuwaas oo loo diyaariyay sugidda ammaanka caasimadda Muqdisho si uu dareensiyo ciidanka inay yihiin kuwa shacabka Soomaaliyeed ay ku seexdaan horseedna waa horumarka dalkan la doonayo inuu gaaro. wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa sheegay in ciidankan iyo kuwa kale oo badan ay diyaar u yihiin sugidda amniga caasimadda Soomaaliya Muqdisho. marka ogaada idinkana dhalinyaro waxa wadanka lagu jiifo idinka la'aantiin meeshan dawladnimada soo magaari lahayn waa la soconaa in qaar lugan naf ay ku waayeen qaar inay dhaawac yihiin waa la soconaa barnaamijku uu joogaa hadda un dawlad hore way soo jirtay inta hore jirto wax laga sheegi maayo laakiin wax hore waa la bedelay oo ujeeda barnaamijka intuu idinku yimid goobaha joogtada kumaan doonaa waa idin daba socon doonaa hadduu ilaahay yiraahdo hadday noqon lahayd wixii mushaaraad madaxweynaha hore oo badan qaadan barnaamijka waa joogaa mushaaraadkooda noqon caafimaadkooda noqon lahaa qalabka waa in dhameystir doonaa insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlay ciidanka ayaa uga mahadceliyay sida wanaagsan ee uga go'an tahay inay naftooda u huraan difaacidda qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya. waa idin salaamay kulligiin marka hore marka labaad runtii waxa aad farxad iigu ah inaan idin imaado aan idin soo salaamo arko xaaladda iyo duruufaha aad ku sugan tihiin marka koowaad waxaan idinkaga mahad celinayaa sida aad waddankiina uga difaacdaan cadowga waxaan idinkaga mahad celinayaa in aad naftiina u soo diyaarisaan inaad dalkiina u hurtaan qofka bini aadanka waxa ugu weyn oo bixin karo waa noloshiisa haddii aad aqbasheen noloshiina inaad u bixisaan dalkiina dalka iyo dadkuba abaal idinkaga hayaan waxaan aad uga xumahay kulligeen iyo dalkeenaba dhibaatada uu ku sugan yahay laakiin dal walba oo dhibaata soo marta waxaa dhibaatada ka bixiya rag iyo dumar maantana ummadda Soomaaliyeed waxa ay ka filayaan inay xoreeyaan waa idinka. Mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya ay xoogga saarayso taageerada iyo garab istaagga ciidanka qaranka ee u taagan sidii hooyooyinka Soomaaliyeed ay nabad ugu noolaan lahaayeen dalkooda. waxaan idin ballan qaadayaa inaan diyaar u nahay inaan idin taageerno idin taakulayno waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad ku taagan tihiin dariiq dhab ah inaad dadkiina xoreysaan hooyooyinkiin iyo walaalihiin iyo adeeradiin iyo dadka idinka dambeeya iyo gabdhihiinna iyo xaasaskiinna inay jidadka nabad ku maraan wax ka sharaf iyo karaamo badan ma leh qof bilaadan uu samayn karo waxaad ka shaqaynaysana waa arrinkaas waan idinku mahad celinayaa waxaan ugu dambeyntii idin sheegayaa inaan aad raalli uga ahay wasiirka iyo taliyihiinna in loo soo xulay laydinkuna keenay inay idin garab istaagaan waxaana ku kalsoonahay haddii aad aamintaan lana shaqaysaanna sidaan aniguba u aaminsanahay inay dalkan dhibka ka saari doonaan iyagoo adeegsanaya awooddiinna iyo quwaddiinna. dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii dambe waxay waday qorshayaal lagu sugayo amniga guud ee dalka gaar ahaan caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Nasra Bashiir Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada caasimadda Muqdisho.